السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنو وناكسن داودياشنada qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto oo nagala socotaan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka deegaanka Soomaalida Star TV oo idinkaga imanaya xaruntiisa magaalada Jigjiga warka duubayd waxa idin la socodsiin doona anigoo Cabdiid Maxamed qodobada wararka hadda aan idin hayna kuwa ugu doorka roona waxa kamida warmurtiyeed ka soo baxay golaha kabineetka ee dawladda deegaanka Soomaalida oo laga hadlayay qodobo muhiim oo ay kamid yihiin 6 qof oo laga talaabo qaaday kulan wada jir oo ay wada yeesheen hogaaminta sare ee xukuumadda deegaanka Soomaalida oo hogaaminayeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyo madaxweynaha ku xigeenka deegaanka mudane Aadan Faarax Ibrahim ayaa waxa laga hadlayay go'aamo muhiim ah waxa kale aan idin haynaa araahda iyo afkaarta shacabweynaha deegaanka ee gobolada ama magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanku ay kaga hadlayaan isku daygii hadhaagi heego ay ku damceen inay qaraaraaso ka dhaliyaan xasiloonida iyo ammaanka deegaanka daawadayaal qodobadan iyo qodobo kale oo dhameystiran faahfaahintooda u diyaar garooba markale kulanti wacan oo wanaagsan hadana ku soo dhawaada qodobadii warka oo dhameystiran warmurtiyeed ka soo baxay golaha kabineetka ee dawladda deegaanka Soomaalida oo laga hadlayay qodobo muhiim ah oo ay kamid yihiin 6 qof oo laga talaabo qaaday kuwaas oo ku sifoobay shaqo xumo kooxaysi iyo isku day iska horkeenka bulshada dhexdeeda Cabdi Cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya warmurtiyeedkan ka soo baxay kala fadhiga degdeg ah ee uu yeeshay golaha kabineetka deegaanka Soomaalida 15 bisha shanaad ee 2011 tirsi taariikheedka dalka ayaa ahaa sida loo ogsoon yahay deegaanka Soomaalidu wuxuu la jaan qaaday isbedelka guud ee horseedka u yahay xisbiga EPRDF isagoo kaashanaya shacabweynaha Itoobiya isbedelka ayaa taabanaya dhinacyada kala duwan ee xuquuqaha asaasiga ah ee dastuuriga ah sida xorriyatul qowlka nabadgelyada maamulka suuban helitaanka adeeg hufan iyo xaqiijinta sarinta sharciga inkasta oo ay mar walba jireen hagaardamooyin kala duwan oo lagala kulmay waqtigii koobnaa ee talada deegaanka lagala wareegay taliskii hore ee duleystay shacabka deegaanka xukuumadda deegaanka Soomaalidu waxay ku guuleysatay abuuritaanka jawi nabadeed suuragalna ka dhigi kara horumar dhameystiran iyo adeeg turxaan la'aan ah caqabad iyo burbur kasta oo horseed u ahayd xukuumaddii horey deegaanka Soomaalida uga arrimin jirtay hogaaminta cusub ee deegaanka Soomaalidu waxay wada jir ahaan u xaqiijiyeen bisayl iyo lixjalo dheeriya waxayna muddo kooban gudaheed ku guuleysteen dhamaystirka heerarka kala duwan ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo iswaafajinta xubno leh aqoon karti hufnaan kuna tilmaaman akhlaaq wanaagsan oo ay ugu adeegayaan shacabka iyadoo la kaashanayo hay'adaha kala duwan ee dalka qiimeynta qotada dheer ee uu sameeyay golaha kabineetka deegaanka Soomaalidu wuxuu iskula karwaaqsaday in deegaanka Soomaalida ay ka jirto amni la isku halayn karo waxaana la isla waafaqay in deegaanka Soomaalidu uu yahay deegaanada ugu xasiloon ee dalka sidan waxa ka markacay Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed maruu ka hadlayay shirkii dhawaan lagu qabtay caasimadda dalka ee Addis Ababa haddaba si loo minjaxaabiyo isbedelka guud ee ka jira dalka Itoobiya loona dhanqariyo dadaalada xukuumadda deegaanka Soomaalida toddobaadyadii la soo dhaafay waxa saaxada siyaasadeed ee deegaanka lagu arkayay xubno dambiilayaal ah oo dib isu soo abaabulay si ay u abuuraan qas iyo lab lagu dhanqariyaynayo dadaalka xukuumadda deegaanka Soomaalida xubnaha oo adeegsanaya dad aan danqasho shacab lahayn isla markaana dana gaara wata si haddaba looga gaashaanto carqalad kasta oo ay soo maleegaan dambiilayaashii heego ee sababay burburkii baaxadda weynaa ee ka dhacay deegaanka bishii hamle 28keeda 2010 golaha kabineetka deegaanka Soomaalidu wuxuu go'aansaday in si hufnaana loo qiimeeyo erayada kala duwan ee noolayska u ah qaswadayaashii sababay burburkii deegaanka si loo xaqiijiyo ahdaafta guud ee u yaala deegaanka Soomaalida golaha kabineetka deegaanka Soomaalidu wuxuu fadhigan caadi ahayn ku gaaray go'aamadan hoos ku xusan go'aamada shirkana waxa kamid ahaa waxaan si kulul u cambaaraynaynaa isku daygii ugu dambeeyay ee hadhaagi heego ku beegsaday xafladiimeedkii dimqad ee magaalada Diradhaba oo hadafkiisu ahaa in lagu dhaawaco amniga midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada ku dhaqan deegaanka golaha kabineetka xukuumadda deegaanka Soomaalidu wuxuu si buuxda u ballan qaaday inuuna gorgortan marnaba ka gelaynin sugidda amniga hirgelinta sareynta sharciga ilaalinta nidaamka dawliga ah si loo dhowro xuquuqda muwaadiniinta golaha kabineegu wuxuu xilkii ahyeen ka xayuubiyay xubno kamida xukuumadda kuwaas oo ku sifoobay shaqo xumo kooxaysi xaalad abuur kicin bulsho iyo tabin warar aan sugnayn oo dhaawacaya wada jirka bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida
golaha kaabineega deegaanka Soomaalidu wuxuu si buuxda isula qaatay in aan si naba loogu dul qaadan karin cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso xasiloonida iyo midnimada bulshada deegaanka Soomaalida isla markaana isku dayda inay dib u soo noolayso burcadii heego wuxuu golaha kaabineegu si xushmad leh baaq ugu dirayaa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Mudane Axmed Shide inuu 2 maalmood ku yimaado xarunta deegaanka Soomaalida ee Jigjiga si loo falanqeeyo waxqabadka xukuumadda isla markaana loo dardargeliyo hawlaha dib u habaynta xisbiga iyadoo lagu salaynayo jihada siyaasadeed ee mustaqbalka ugu dambeyntii golaha kaabineega deegaanka Soomaalidu wuxuu shacabka ugu baaqayaa inay ilaashadaan nabadgelyada iyo midnimada guud ee ka jirta deegaankooda isla markaana ay garab istaagaan xukuumadooda iyo dadaalada kala duwan ee lagu dhamaystirayo isbeddelka ka hana qaaday deegaanka laguna xaqiijinayo ka faa'iideysiga bulshada hogaaminta xukuumadda cusub waxaa ka go'an hirgelinta sareynta sharciga ku dhaqanka dastuurka dalka iyo kan deegaanka ilaalinta iyo ka shaqaynta danaha guud ee shacabka xafiiska xiriirka arrimaha dawladda ee deegaanka Soomaalida 16 bisha Dir 2011 magaalada Jigjiga kulan wada jira oo ay wada yeesheen hogaaminta sare ee xukuumadda deegaanka Soomaalida ay hogaaminayeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Mudane Aadan Faarax Ibrahim oo laga hadlayay go'aamo muhiim oo ay kamid ahaayeen xoojinta shaqooyinka bulshada ayaa ka dhacay deegaanka waxaana kulankan warbixin inooga diyaariyay wariyaheena Farax Bade shirkan oo lagaga hadlayay dardargelinta hawlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban oo hogaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Mudane Aadan Faarax oo ay ka soo qayb galeen dhammaan hogaaminta sare ee deegaanka sida wasiirada wasiir ku-xigeenada maareeyaasha wakaaladaha iyo hogaaminta caasimada deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa galinkii dambe ee maanta ka qabsoomay xarunta madaxtooyada deegaanka shirkan ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la wadaagay nuxurka shirka iyo natiijooyinkii ka soo baxay wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dawladda Mudane Cabdullaahi Maxamed Nuurid shirka waxa laga hadlayaa nidaamka loo sii dardargelin lahaa shaqooyinkii xafiisyada la qabanayay hawshan jirta inay tahay hawl xisbigan cid walba ay maartay xubin xisbu yahay kaalinta kaga aadan waqtigeeda uu qaban doono laakiin hadda adeegii ummadda u baahnayd in loo sii qabto nidaamka xisbigana iyadoo la raacayo xeer hoosaadka xisbiga kaliya wax lagu sixi doono hadduu Ilaahay yiraahdo oo hawlaheeda lagu qaban doono shirkan hadda waxa ka soo baxay go'aanka waxa weeye in ummadda sidii hore loogu adeego wax dhibaato iyo haysays iyo mataqaana hawlahaas inayna jirin nin walba xafiiskiisa iyo shaqadiisa dadka la qabto mataqaana bulshada adeegii u baahnayd la bixiyo weeyaan hawshan maalinta deegaanka ka dhacday ee loogu talagalay in lagu mijaxaabiyo isbedel ka dhacay deegaanka waxay ahayd arrin la soo qorsheeyay oo soo qorsheeyeen yaqaan jiboojka waxa la yiraahdo ama la yiraahdo waraabayaashii dharaartu ay soo qorsheeyeen ee deegaankan dabaabi jiray iyagoo isticmaalaya dad ilita ama aqoonyahan sheeganaya oo deegaankan markii hore mataqaanaa ay u fudeedin jireen nidaamka ay ugu dul noolaayeen ee hantidiisa iyo hawshiisa dhan ay ku qaadan jireen iyagoo isticmaalaya ayay damcin isbedel ka dhacay deegaanka inay mar labaad ay maartay qabtaan oo ay maartay socon waayay isbedelkaasi hor istaagaan iyo dad kale oo iyaguna waxay isticmaaleen qoomiyadaha kala kamidana way isticmaalayeen على حال أسلوب وحلو وذي هوشاس وحي هيد هو قشيسن والله تلا قال دتكاس كان النادي يوم مرتي كورنيلا دي هذا كور ديجان كمرتي حرتدي كوه يسنشري إن أي مرة بعد هذا ما تقارنا يسبدل كديجان كده كالصعدة هذا كهنا قاعدة يداتكم نبتقول كوهرين حقوق آدمها لو حل قليل ما تقارنا حرتقول كالصعدة إن مرة بعد لو متجحابيه لو عليو هو جي هذا كور لو تشري تاس يجو كدولية مركي تن أي دعوة إن هذا مرة بعد أوجد بان حاجة دولة ده federaalka iyadana saasi sila isbedel ka socda mar labaad isagana lagu maartay mijaxaabinayo marka waxa leenahay shacabka iyo aqoonyahanka dal iyo dibadba waxa weey ma taqaan isku day waha isku daygaasna ma taqaan uu socon waay aad bad mahadsantiin hogaamiyaasha diimaha ee deegaanka Soomaalida ayaa shir ay maanta ku yeesheen magaalada Jigjiga waxa ay ka codsadeen xukuumadda in sharciga la hor keeno shakhsiyaadkii dhibaatooyinka ka geystay deegaanka Heego iyagoo geesta kalena digniin culus u diray Heego محمد حسن أي فلذ وركن إنه هي hogaamiyaasha diimaha muslimiinta iyo kristaanka oo kulan ballaaran ku yeeshay magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay sheegeen inay garab taagan yihiin isbedelka ka dhacay guud ahaan dalka iyagoona digniin u diray cid kasta oo isku dayaysa inay khalkhal galiso ammaanka iyo sumcadda dawladda deegaanka Soomaalida sidoo kalena waxay dawladda ka codsadeen
in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey dhibaatooyinkii 4 Agoosto ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida. Sheekh Axmed Abi waa gudoomiyaha golaha arrimaha islaamka waxa uu sheegay in aan loo dul qaadan karin cid kasta oo isku dayaysa in isku dhac iyo ammaan darro ka abuurto dowlad deegaanka Soomaalida. arrinta muhiimka ah ee inaan ka shanqadhino muhiimka noo ah waxa weeye kow heego oon isla garanayno oo dadka hadda meeshan fadhiya cid loo turjumaya looga turjumaya heega waxay tahay aynan jirin inaan si adag uga soo horjeedno nana matali karin shacab ahaan ayna noo matali karin dawlad ahaan ayna noo matali karin taa waa qodobka koobaad weeye qodobka labaad faragelinta qaawan in meel loogu soo gabanin ee xubno federaalkiihi oo dawladda ka tirsan ay ku hayaan deegaanka iyadana si adag baan uga soo horjeednaa haddaan nahay dadkii culimadiinkii diimaha haddaan nahay run ahaantii si adag baan uga soo horjeednaa maxaa yeelay dastuur baa jira sharciyad baa jirta xeer hoosaadyo ay deegaanku leeyihiin baa jira dastuur uu deegaanku leeyahay baa jira waa in la dhaqan geliyo oo la ixtiraamo oo la tixgeliyaa qawaaniinta iyo shuruucda iyo dastuurka uu deegaanku leeyahay saa darteed waxaan ka codsanaynaa hay-adaha federaalka dawladda federaalka in faragelinta qaawan ee lagu samaynayo deegaanka ay joojiyaan waxa ka dhaxeeya uu noqdo inagoo Ethiopian wada ah guud ahaan inagoo ishoos imanayna guud ahaan haddana dastuurka dalka in la ilaaliyo maadaama isbedelkii dalka ka dhacay aan aad soo dhaweynay 100% shacab ahaan ka diin ahaan aan u soo dhaweynay 100%. geesta kale wadaadadii Kiristaanka ee ka soo qayb gashay kulankan ayaa waxay sheegeen inay garab taagan yihiin xukuumadda iyagoona codsadeen sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka. ይሄ ነገር ተከሰተ ወይም እየተንቀሳቀሱ ነው ሲባል ስንሰማ ያመናል በእውነት ያሳብዳልም waa dhibaato xoogan haddii mar kale ay maskaxdeena ku soo dhacdo arrintii haatan ka hor dhacday xukuumadda federaalka iyo dowlad deegaankana waxaan ka codsanaynaa in sharciga la hor keeno ciddii ka dambeysay dhibaatooyinkii haatan ka hor dhacay ክልሉ ወይም አሁን ያለው አመራር ኃላፊነቱን የተረከበው ተከታትሎ እነዚህን ለፍርድ ማቅረብ ግዴታ ነው። sidoo kale culimadii ka soo qayb gashay madashan iyo wada tashiga ayaa waxay dawladda ka codsadeen sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka. dadka nimankii iyagana maaragtay ay ka soo haray group nidaamkii hore uu samaystay ee heego sida aanu mar walba ku celcelinayno in aanan aqbalaynin heega inayna maamusho mar dambana ayna noo cunamaynin ay magaranaysaa deegaanka waxba aynan ka ahayn oo waqtigooduna la dhaafay ee sinaansho iyo nabadgelyo iyo cadaalad iyo midnimo loo gudbay aynan jirin isku duloolaansho iyo kofsi iyo magaranaysaa ihaano aynan jirin oo laga baxay waxaas marka sadarteed waxaanu codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba in sharciga la hor keeno cid wax sharciga ka weyn ma jiro cid walba oo ku xadgudubta ummadii ku xadgudubtay oo dambiilayaal deegaanka ka ah rabana mar labaad in dhibaatadii ay dib ugu celiyaan deegaanka iyo dadkiisa dib ugu celiyaan in sharciga la hor keeno sharcigana la waafajiyo maaragtay waxay muteenna la mariyo ayaanu codsanaynaa. deegaanka Soomaalida isbedel buuxa ka dhacay isbedelkii baa la rabaa in la carqaladeeyo marka waxaan dawladda federaalka ka codsanaynaa in dawladda deegaanka Soomaalida illa anagu garab taaganahay iyaguna ay isbedelka ka qayb qaataan xubnaha ka soo horjeeda faragelinta ku haya ee isbedelka diidan ee raba inay sidii hore ay iskilalka ka dhigaan qashin qub inuu noqdo oo maxay heedaanay ay kolba mid ay yimaadaan lacagta ka gurtaan raba dhibtii dhacday inay sii wadaan raba xubnaha si cad baan uga soo horjeednaa waana ka soo horjeednaa mana aqbali doono. የሰላም ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ነው። arrimaha nabadgelyadu waa mid dhammaanteen bayna qusaysa nabadgelyo la'aan lama dhaqaaqi karo shaqa ma jirayso sidaa darteed waxaan codsanaynaa ciddii ka dambeysay dhibaatooyinkii dhacay in sharciga la hor keeno
በክልሉ መንግስት ውስጥ ያሉትንም ሆነ waxaan doonaynaa in sharciga naloo hor keeno mas'uuliyiintii hore ee dhibaatooyinka noo geysatay annagoo fariintan u gudbinayna xukuumadda federaalka iyo ta dawlad deegaankaba ሰላማችን እንዲያረጋግጥልን እንፈልጋለን haddaba xafiiska nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in bulshadu ay xaq u leeyihiin in cid kasta oo dhibaato u geysata sharciga la hor keeno dadka kalsooni buuxda waxaan ku gelinaynaa cidii lug ku lahayd ama gacan ku lahayd inaanu sharciga u horkeeni doono si xadgudubka ay sameeyeen wuxuu sharcigu ka qabo loogu ciqaabo loo mariyo ayaan ku anagoon fiira gaara ama takoor gaara dadka aan marinaynin wixii dambi uu ku lug lahaa ku dabagelayna marka dadka noo soo tabtay ama noo soo cawday ee dadweynaha ah waxaanu mar labaad ku adkaynaynaa in cabashadooda ay noo soo dhammaystiraan intii uu kulankani socday ayaa waxay culimadeeda u soo jeediyeen mas'uuliyiintii hore ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyagoona ugu dambeyntii sheegay inay ka culimo ahaan ka soo bixi doonaan doorkooda kaga aadan nabadgelyada kaasi wuxuu ahaa wariyeenna xasan maxamed halka daawada nagala socotaanay waa SRTV waxaan ku guda jirnaa warkeenii fiidnimo waxaa si istaba joog ah u soo gaaraya telefishinka SRTV araahda iyo afkaarta shacabweynaha deegaanka ee gobolada magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka ay kaga hadlayaan isku dagiya hadhaagi heego ay ku damceen inay qararaaso ku galiyaan xasiloonida iyo ammaanka deegaanka haddii aan ku bilowno araahda shacabka gobolka Faafan balaan eegno caasimada gobolka iyo maamulka magaalada Qabri Bayax heega maanta magaalooyin badan oo dowlad deegaanka waxay ka ridday waa loo yahay dhibaatooyinkan waysan waa loo yahay burburkii heego ilaa iyo maanta diifteedii waad ka muuqatay waxa weey maanta heego in ay maanta la dhoo heegaaba dib u soo noqoni ama heegaaba maanta oo la wada waxaan u arkaaba wax riyaal ah uma arkaba wax caadi ah waxa weey arinta heego dawladdu kaliya ma taalo shacabkan way taala dawladdu waa shacabkiina waa dawladii marka waxa weey maanta arin walba oo ay heego isku dayda shacabka ka jawaabi shacabkana heego arinteeda meel saari waxa weey isku daygan iyo waxan iyo propaganda aan wadana waa propaganda waxaan u arkaa Facebook intay soo istaagto ay leedahay maxay isniintaan ballansanay talaadaan ballansanay arbaca ballan bal waxa ballansan sheegayaan haday badleeda shacabkii waxay ku sameeyeen shalay toolana waan taagneen maantana waan taagneen Facebookna shacabku ma matalo waxa weey dawladuna ma matalo dadkan yara propagandista ah mar walba ka soo hadlaya Facebook iyo hadalka ay maanta ku haray intaanada waa la soo afjari aniga markaan arinta fikirkayga ka dhiibto waxa weeyaan horta ammaanka waa wax muqaddis ah dadka hadda maanta ku fikiraya ma aragtay inay deegaanka macnaha khalkhal galiyaana anigu waxaan u arkaa arin aad iyo aad macnaha in looga hortago u baahan oo dhammaan bulshada iyo shacabka iyo dawladduba ay ka hortagto ayaan anigu u arkaa sababtoo waxa weeyaan ammaanku adiga ku nool isagoo kuma noola wixii magaalada khalkhal gelinayana anigu shakhsi ahaan waxaan u arkaa inaanu ka hortagno hayaha nabadgelyadu warbixinta ay soo saareen waa mid loo baahan yahay baan odhan karaa isla markaa xaaladda deegaankeenu ku sugan yahay iyo waxyaalihan soo maray iyadoo laga duulayo wixii soo dhacay 4 Agoosto maanta intii yareed u dhaxaysay gaabkii aan galnay deegaankeenu wuxuu ku sugnaa waa loo yahay xaaladda amni darro halkay gaadhay marka maanta uma baahanin cid kale oo falal amni darro ka geysata deegaankan cid dambe oo nabadgelyada iyo horumarka bulshadu maanta ay higsanayso iyo in maanta cid ay damanayso tibis ka soo abaabusho in dadkan la yiraahdo maantana dhibaato kale aan u geysano iyadoo la fiirsanayo dana gaar ah shakhsiyadeed ma aha mid bulshada loo daneynayo ma aha mid mataqaanaay la eegayo hooyooyinka iyo maatida dhalaanka ku waxyeeloobaya nabadgelyo darrada marka maanta mar labaad dad siyaasiyiin oo doonaya inay maanta ay iyagu kursi ku soo noqdaan inay yiraahdaan haddana waxa weeyaan kursigii baan dib ugu soo noqonaynaa oo haddana falal amni darraan dib ka soo abaabulayna oo waanu ku soo noqonaynaa deegaankii annaga ka dhalinyar ahaan anoo ku hadlay magacayga iyo magaca dhalinyarta deegaanka waxaan qaadanayna maaha waxaan yeelayna maaha dhalinyarta deegaanka waxaan ugu baaqayaa qof walbaba nabadgelyadu maaha iyadoo inaguma noola innagaa ku nool dadkan waxay u baahan yihiin nabadgelyo
iyagaa isdabaraya oo noloshooda hagaajisanaya hadday ammaan helaan markaa hay-adaha amniga iyo dawladda waan garab taagannahay waana mid loo baahan yahay taasi marka waxaan u arkaa inaan ka qayb qaadanno dhammaanteen oo wax alla wixii dulduleelahay nagu imanaya aynu iska qabanno anu waxaan leeyahay heego iyo ciddii isbeddelkan ka hor imanaysaba in tallaabo bir ah laga qaado lagana hor yimaado dimuqraadiyadda iyo sinaantan iyo cadaaladdan la helay ciddii inay carqaladaysa maanta doonaysaa waa cid cadaabkii dadku ka soo baxay inay ku celiso doonaysa sidaa darteed dadweynaha waxaan ugu baaqayaa tii oon dawladdaba ahayn in laga hor tago oo gacan bir ah la saaro heego iyo hadhaageedii dee burburkii ay u geysteen deegaanka ayaa inoogu filan inaan maartaayey hal mowqif ka wada qaadanno marka annagu shacab ahaan dawladdeeda waan garab taagannahay mar kastana waxaanu leenahay wax kastoo caqabad ku ah heego uunba ma aha cid kasta oo caqabad ku ah dawladda iminka joogta ee dimuqraadiga waxaanu leenahay si buuxda ayaanu shacab ahaan annagu uga soo horjeednaa cid kasta oo midnimada iyo dawladnimadka deegaanka ka jirta iyo dimuqraadiga iyo nafsiga hataa ay deegaanka Soomaalida mid ay u baxeen cid kasta oo caqabad ku ah annagu waxaan leenahay ciddaasi cid ka shaqaynaysa ma aha danta bulshada iyo danta qaran ee waa cid danaheeda gaarka ah wadata marka danta gaarka ninkii wata iyo ninkii heege baaqigeedii ahaa ee Facebook maartay wax ku soo qorqoraya annagu waxaan leenahay ummadda deegaanka kuna lagama xukumo Facebook day waxa laga xukumaa dawlad bay leedahay madaxweynaheedu yahay Mustafa Maxamed Umar oo geesi ah anu muwaadin ahaan kaalinteeda waxay tahay dadka rabshadaha wada inta karaankayga aan awoodo inaan wax ka qabto oo dawladdeeda iyo deegaankayga iyo qabalayga ka tirsanahay iyo magaranaysa maamulka xataa magaranaysa santarka inaan soo wacdi geliyo oo magaranaysa ay u sheegaan dadka aba dhibna wada naga qabtaan idhaa maanta indhihii ayaa noo dilaacay dawlad xaq ah oo dadka cadaalad nin walba dee koor ku lahaa maanta uu taagan yahay ninkii ganacsada ahaa free buu u ganacsanayaa ninkii shalay toole la cabudhnayay maanta lama cabudhnayo dee shamaaxiya maanta ma joogo yaa dadkii xurduqol hee waddanka dilaacay dad baa cidyaha laga saaray dad baa ilkaha indhaha laga saaray nin baa wuxuu igu yidhi waxaa moor waxbana ma arko waxaanu mooriyo maanta waxa weeye alxamdulillaah xitaa haddaad nin ciidanas qabsataan maanta waad hadlaysiin xuquuqdaadii oo taamad haysataa kaalada muwaadin waxa weeyaan waxa la yaala wixii horumarka ka hor imanaya ee heego ee u horeyso in gacan bir lagu qabto annaga iyo dawladda iyo shacabka oo gacanta is walaysana waan soo dhaweynaynaa isbeddelka ka hana qaaday dalka iyo deegaanka waxaan ku faraxsanahay nidaamka cusub iyo la jaanqaadida waxa weeye mataqaanaa maamulka cusub waxa aan ka soo horjeednaa inaan waxa weeye mataqaanaa ka qabano dalka iyaga iyo deegaanka iyaga hadaayii waxa weeye mataqaanaa tacadiyada xun u geysta deegaanka ee ay ka mid ahaayeen mataqaanaa waxa weeye heego hase ahaatee annagu maadaama aan nahay dhallinyarada maamulka magaalada Qabri Bayax mar walba waxaan u taagannahay inaan ilaashano dalka iyaga iyo deegaanka iyaga annaga oo la jaanqaadayna isbeddelka cusub iyo maamulka cusub kulley dhibaatooyin badan iyo tacadiyo badan oo maamuladii hore iyo waqtigii hore mataqaanaa la soo marin jiray hase ahaatee hadda muddadan xukuumaddan cusub ay xilka hayso maadaama ay tahay waqti gaaban haddana kulley waxyaabo badan oo isbeddelo lagu farxo aan aragnay u jira waxaan aad iyo aad horta u taageersanahay haddaan nahay shacabka degmada Qabri Bayax gaar ahaan dhallinyarada iyo dhammaan waayeelba waxaan aad u taageersanahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Itoobiya maamulka ee kan loo haya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan fogeynaynaa oo aan kollaba ogolayn waxyaabahan iminka la sheegay heego inay dib waddanka ugu soo noqoto waa habeenkii xalay tagay dib ugu soo noqon mayso ma ogolin ka shacab ahaan ma ogolin ka dhalinyar ahaan ma ogolin aad iyo aad baan u diidanahay dhibaatadiina soo haysay markasta waan xasuusanaa dhibaatadii ay nagu haysay markii hore heego qaadiradii iyo erigii iyo dhibaatadii iyo qoolkii ay nagu haysay iminkaan ka nasannay nabarradii baa iyaga nagu sii yaalla nabarradii baa dadkii ku sii yaalla budadkii ay la dhacayeen iyo qoolkii ay la dhacayeen markaa mar raba ma ogolin mana soo dhoweynayno hal shaksi oo ogolla ma jirto shacabka degmada Qabri Bayax oo dhammaan suu dhan yahayba wax ogoli ma jiro marka dhibaatadii na soo martay mid weligeed la iloobi kara maaha mid weligeed qalbiga ka go'i karta maaha marka dhibaatadaas aan ka baxnay alxamdulillaah waa nasr ilaahay noo keenay waa cadaab markii horena saaraa eegan aan ka baxnay alxamdulillaah rabbil caalamiin si khaas ahaan oo gaar oo ay dhibaatooyinkii heego iyo magarasa maamulkii xumaaye diyaacadkii cabdi ayaa inaga loo gaadsiiyeen annagu 18 qof ayaa al-shabaab laga dhigaan jirinba dad beeraleeya dad macallimiina nooc walba waan isugu jiray
أنا مع السكول بانها تلقى أنت بدي بعتنا لو جستي الجراعي قتلوني الكثيرين السديدين إلى مرة واحد هدنا ودكي يا دباتويكي يا نبردي يا خلاصة كابوران بالربان أيام مغلي من كوضعنا معها تذكر دباتوي جستي وكوكا ما أنت هكذا كغور بحنا يا رانت واحد شفتي إن ما معها كم ذي يوم الله يقاضي أو تعتقد بدنا يجي سنة هالك هاللي يشيل اللامده الحمد لله رب العالمين ما أنت نسيت ديمقراطية وسوق أي وغور بحنا يا دباتوي شفتي يصير عنا قور بيحمل يكون أنا ما شيء يقول جدا هنت شفتي شفتها وحقيقة حوالي قور بيح waxay ahayd hadda ka hor dadkii diidanay iyo tacadiga dhibaatada deegaanka lagu hayo marka koowaad horta iyadoo soo dhaweeyay isbedelka deegaanka dhammaan ka dhacay iyo dalka iyo deegaankaba ka dhacay waxa weeye anagu cidna ururada la sheegayo ma taageerayno si wada jira waxaan u taageeraynaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ta kale waxa weeye dhibaatadeena soo marisay waa ma taqaanaa xusuusanahay heego dhibaatada ilahayd waxa weeye ninkii garanayo jigjiga soo bilqasta oo la faasay shakhsiyada waxa jira tuumbooyinkii laga jaray oo dawladda hore tuumbooyin ku qabay kuwaasna sideedaan uga soo horjeednaa hadhiya habeenna waanu ma taqaanaa ka horjeednaa waanu iska celinaynaa wax la soo dhexgelina ma jiro waxa weeye xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya uu hogaaminayo Mustafa Maxamed Cumar si waxaan u soo dhaweynaa kashiya laaba waanu garab taaganahay habeen dalaal waxaan u soo jeednaa u taaganahay mataqaan inaan ilaashano dalkayaga sababtoo ah kulli waa leeli kara shakhsiyaad wax weeyna u dhaxdhuuman kara oo inta wax weeyaan ma la soo fangareeyo nidaam khaldan loo soo isticmaalo balse laakiin anaga ka dhalinyar ahaan iyo nidaam dawladeed baan loo kicin anaga dhalinyar ahaan oo shacab ayaa ku filan waayo waan la halgaminaa mar walba waan ka xisaabtamaynaa wax walba iyo goob walba ay marayaan waa midaan ka waranay kuwaasi waxay ahaayeen shacabka ku dhaqan maamulka magaalada Qadir Bayax oo fikirkooda ka eegayay isku daygii fashilmay ee heego intaynu warkeena dambe waxayna soo gaari doonaa maamulka magaalada Wajaale aw Barre iyo Gursum oo afkaartooda iyaguna ka dhiiban doona isku daygan fashilmay ee heego haddii aynu eegno gobolada Nogob iyo Erar shacabkoodu afkaarta ay ka dhiibteen isku daygan fashilmayna aan eegno waxaan u arkaa arinta heego iyo wixii la mida iyo wixii la socda xaraan baan u arkaa waxaan u arkaa kuwii hagardaamadii hore iyo dulligii maartay aan ka baxnay eega noo geystay inay iyaga yihiin waxaanu ku kalsoonahay dawladda maanta dhisan ee Mustafa uu madaxweynaha ka yahay taa ayaanu ma aragnaa taxaqa ee dalka iyo dadka wax gaarsiinaysa ee wax u qabanaysa ee cadaaladda ee xaqa taasaanu u aragnaa taasaanu ku kalsoonahay heego anu waxaan ka aaminsanahay heega inay tahay kuwii dhaca iyo boobka iyo dhibaatada maxay ahaydey kilalka Soomaalida u geystay kuwii waxaan ka aaminsanahay maxay ahaydey boobka iyo dhaca maxay ahaydey shacabka u geystay waxaan ka aaminsanahay heega inay tahay kuwii maxay ahaydey ma taqaanaayay maxay ahaydey makrafinaasiyadii iyo bangiyadii iyo ma taqaanaayay dukaamadii shacabku lahaa kuwii boobay inay yihiin baan heega ka aaminsanahay inaan wax ka qabto oon la halgamo naf iyo maalba inaan ku halgamo oon iska qabto eego iyo wixii la mid iyo wixii arqalad naftayda iyo dawladda ku keenayaan diyaar maxaad kula dardaarmi lahayd ama shacabka maxaad u gudbin lahayd ugu dambeyn shacabka waxaan u gudbin lahaa nabaddu waa xasilooni nabaduna dawladdu way iska celin kartaa wax laakiin nabaddu shacabkay dan u tahay innaga shacabka inaan isku duubanno eegana waan isku duubannahay inaan ka hortagno wixii nabadgelyo darro nagu wada oon gacan bira ku qabanno oon iska qabanno ila qom wixii arqalad dawladda iyo shacabka gelin karana gacan bira ku qabanayna hadduu alla idmo haddee xaalka ay ku dhisnayd heega booli iyo dadboob unbay ahayd iyo iyo maaragtay wax barkumataal ah sideedabana dee waxaa la yidhaahdaa tix baa marta maaragtay wixii booli lagu soo dhisaa bilic ma yeeshaane marka wax uun dadboob ahoo dadka laga ururiyey uunbaa oo dadka laga boobay oo laga dhacay unbaa wax lagu dhisahayey tii baana deedna la rogmatay marka haddee waa shacabkuna maanta aad iyo aad waxay mahadinayaan in laga baxay maaragtay xaaladii heega ee dadboobka ahayd ee dhinac maroorsanka ahaa in laga baxay oo loo baxay cadli iyo maaragtay sinaan ayay maaragtay aad iyo aad ugu riyaaqahayaan sidaa baan anigu yaanu arkaa hadda ka hor waxaa jirtay dhibaatooyin ka dhacday deegaankeenna dhibaatooyinkaas oo fuliyeen dad dana gaara leh oo mataqaanaa maamuladii hore ka mid ahaa oo hogaaminayeen iminkana intooda badan lacaga intay la bixeen dibadaha ku maqan
oo raba inay dibadaha iyagoo jira hanti ay ku carqaladeeyaan waddanka waxaa kaloo jira hadhaagii heego oo ku jira xukuumadda sare ilaa heer federaal iyo heer deegaan iyo meel walba ku jira marka dadka ayaga maadaama dhibaatooyin hore ay nagu soo dhaceen burbur badan la noo geystay haddana aan xorriyatul qowl iyo mataqaanaa soo kabasho ku jirro oo noloshadannadii hadda caadi ku soo noqotay maadaanu nahay odayaasha degmada Fiiq iyo kuwa gobolka Erar kama ogolaan hayna cid dambe oo dhibaato deegaanka ka samaysa cid kastoo carqalad iyo dhibaato wadana waanu ka soo horjeednaa maal iyo muruq iyo xoog iyo xabadba waanu kaga soo horjeednaa cid kastoo dhibaato iyo carqalad waddanka ka samaynaysa waxaan halkan ka cadaynaynaa inaan mar walba garab taaganahay xukuumaddan marnaba aan ogoleen cidna loo soo yeedhiyo dullinimadii waan ka tagnay annagaa isku tashanayna annagay noo taallaa waxa khilaafay dhexdana yaalla annagaa dhammaysanayna wax kor ka yimaaday dawladda Itoobiya waa dawladdeennii laakiin marnaba ma ogolin in loo yeedhiyo kolba xukuumaddu maanta xasilooni baan ku jirnaa maamul suuban baan haysanaa wixii khilaafay dhexdana yaalla waan dhammaysanaynaa waxaan mid kale fariin u dirayaa dadka danaystayaasha ee abarjunistayaasha dantooda aan ka hadlaya ee dalkiiyo dibadda jooga inayna deegaankan iyo dadkanagu maanta u baahnayn qalalaase waxaanaan marnaba yeelin una dulqaadanaynin in dhibaato waxa weeyaan deegaankana ka dhacda maadaama waxa weeyaan hagardaamo iyo dhibaatooyin fara badan aan soo maray oo waxa weeyaan hadda indhahan kala qaadno waxa weeyaan dimuqraadiyaddii hadda noo bilaabatay waxaanaan marnaba u dulqaadanaynin xukuumadda cusub ee waxa weeyaan hadda hana qaaday in dhibaatooyin iyo dhib lagu daba abuuro oo waxa weeyaan hadda la burburiyay maadaama anagu hadda indhihi kala qaadnay shacabka deegaanka Soomaalidu oo waxa weeyaan ay hadda heleen naacaw udgoon oo dimuqraadiyada shacabkan aan hadda la caburino waxa weeyaan maxaa saawada shay maxaa taw tirminaa looranin waxa weeye shalay toole wixii aan soo marnay iyo waxaan ku jirnay waan sogeyn bulshadana way soo rafaaday waa bulsho Ilaahay le maanta xilli fiican bay ku jirtaa ciddii rafaadka sababta oogu ahayd oo kala duwan tu dibad joogta iyo tu dawlad ku jirta waddanka gudihiisa joogtaba waxaan laba fariimood oo gaagaaban ku oran lahaa kuwa dibadda jooga haddaad fiicnaydeen shalay iyo haddii aad xumayneenba waad baxdeen laakiin waddanka wax rabshad ah inaad ku samaysaan idinkama ogolin dembi aad lahaydeen inaad dembi ku sii darsataan wax fiican maaha adduunkiinana oo ma fiicno aakhiradiinana oo ma fiicno inaad tanaasushaan cafis dalabtaan bulshada cafis ka dalabtaan intaasaan idinkula talin lahaa kuwa dawladda ku jira ee hadhaaga sii ah ee kuwa dambiilayaasha ah ee reformku qaaday kuwoodii ah weli dawladda ku sii dhex dhuumanaya iyaga laftigooda waxaan astaayad ahaan ku siin lahaa inay ka xishoodaan wixii ay horey u soo sameynayeen iyo ciyaartii jaawataaga ahayd ee inququlushta ahayd ee lagu soo sameynayay shacabkan deegaanka labaad inaan loogu sii darin laguna xisaabtamin iyagana intaasba oo gaaban baan odhan lahaa waxay Soomaalidu ku mahmaadaa nimaan dhallaanahaynba had waa baryay og cid kasta oo isku dayda waxa fiican in haysana inay naga xumayso ay xumi ku bedesho barbilow ilaa bardhamaad naf iyo maalba waan ka hortagaynaa baan leenahay hagaag daawadayaal waxay noo soo socda gobollo badan iyo degmooyin badan afkaarta iyo fikradaha ay ka dhiibteen isku daygii fashilmay heego bal aan eegno afkaarta bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah degmooyinka gobollada Afdheer iyo Daawa waxaan halkan ka cadeynayaa in hadda ka hor dhibaatooyin fara badan aan soo marnay oo ay noo geysatay xukuumaddii hore iyo heego haddana ilaahay aan naga bixiyay waxaan dhihi lahaa heego wixii dhibaato hore u soo geysatay way soo geysatay hadda laakiin waa laga baxay isbedel baa dhacay isbedel horumareed baa dhacay waxaan u sheegayaa in ay ka waantoobaan ama ay ka dhaxbaxaan waxyaabaha ay ku jirto heego iyo dadkii dhibaatooyinka hore soo geystay waxaa ila gudboon in aan ka qayb qaato horumarka iyo nabadgelyada iyo maamulka suuban ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida uu hogaaminayo waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa oo aan muxuu ahay ka xunnahay hagardaamada hadaaga heego ee qasqasada ka wadiya dhibaatada deegaanka Soomaalida sida khaladka iyaga oo awal hagardaamadoodii dhibaatadoodii raad cad ay ahayd haddana weli hadaagi uu dhibaatooyin ka wado waxaan ka soo horjeednaa hadaaga heegada ee ku hadhay deegaanka Soomaalida hadday gobol tahay iyo hadday xukuumadda deegaanka dhexdeeda tahayba waxaana taageeraynaa xukuumadda maanta uu hogaaminayo mudane Mustafa Maxamed Umar haddaan nahay shacabka degmada Hargeysa odayaasha ku hadlaya afka odayaasha iyo deegaankaba aan aad iyo aad u taageeraynaa xukuumadda deegaanka waxaana ka soo horjeednaa heego iyo hadaaga weli ku rafanayo deegaanka waxaan ku farxsanahay sida loo fashiliyay
qasqasihii iyo dhibkii ay ka wadeen toddobaadkan dhexdiisa deegaanka soomaalida ayagoo aan dowladda federaalka la ogeyn oo muxuu ahaay shacabka soomaalida aan la ogeyn oo cilmi ogaan jirin ay isku dayeen inay dhibaato ka sameeyaan ayagoo gaabkaan ogaaya dhibaatadana waa uu soo maray deegaanku kana cagatoonshaday oo hadda maanta ay isku hagaagtay ayaa haddana waxay isku dayeen inay dhibaato kale ka sameeyaan taas ayaan ka soo horjeednaa waana ka xunnahay waxaana ku faraxsannahay qaabka looga hortagay iyo siday xukuumadda deegaanka iskugu duwan tahay hadda waxaa naga gudboon inaan eegno oo degmada annaga kaga bilowno oo meel walba kaga bilowno hagaaga heego aan iska saarno meel alla meeshay joogaan taasaa ayla gudboon waxaan ku faraxsanahay xukuumadda maanta jirta aniga oo aad iyo aad ugu qanacsan xukunkiisa diyaarna u ah haddaan nahay xisbigii lafdhabar tahaa maanta meel aan joognaba hadday tahay aabbayaal iyo maxay ahayde urur hooyooyin iyo urur dhallinyaraba aan u taagannahay lafdhabarta xisbiga xukuumadda annagana aan ku qanacsannahay waxa agteeda inuu hiridaamo ka sameeyo isku dayaya ee caloosha wax kale kaga jiraanna dee aanan maxay ahayde raalli ka ahayn waxna aynan qaadi karin dee waxaan aad u hambalyaynaynaa oo u soo dhowaynaynaa go'aanka kaabineyga dowladda deegaanka iyo madaxweynuhu ay gaadheen ee ah dadka carqaladda ku waday ee muddada badan dhibaatada u geystay ee maaragtay burburiyey waddankii in maaragtay laga qabto maadaama ay siyaasaddii iyo dhaqaalihii iyo nabadgelyadiiba ay dhibaato ku yihiin in laga qabto go'aankaa aad baan u taageersannahay waxaa ila gudboon in maxaan ku dhaha qof kasta oo wax garanaya oo dalka iyo dadka u dhashay inuu fikirkiisa kaga qayb qaato maxaan ku dhaha kuna taageero nidaamka isbeddelka ee horumarka dimuqraadiyadda iyo maamulka suuban dadka kala jabka wadaa wax alla waxaynu meel alla meelayna gaadhsiin male kala jab horaan noo aragnay midnimada iyo walaaltinimada iyo horumarka maanta deegaanka ka curtay yaan taageersannahay dadkaa waxaan leeyahay dembiga kamay gelin jigjigo oo keliya iyo dadkay boobeen iyo dhulkay dhibaatada u geysteen 8 milyan ee ku nool dowlad deegaanka Soomaalida ayay dambi ka galeen halala xiriiro laamaha amniga internationalka sida Interpol hana loo keeno hana loo maxkamadeeyo sharcigaana loo marsiiyaan leenahay una dul qaadan mayno mar labaad inay deegaankayga dhibaateeyaan horumar diid wey heego waa kuwa noo keenay horumar diid sidaas awgeed heego anagu kuma jirno mana rabno mana arki karno waxaan diyaar u nahay dowladdan hadda dhashay heego waxa la yiraahdaa nagagteena qiimo kuma laha isbeddelkan ka dhacay dalka iyo deegaanka inay mataqaan arqaladayaan waxaan leenahay shan milyan taas kaga baxaya maxamed colaad oo ah xubin u ololeeya arrimaha bulshada door weyn ka soo ciyaaray isbeddelkii ka dhacay deegaanka ayaa mar maanta la hadlayay telefishinka SRTV sheegay in aan loo dul qaadan karin in heego mar kale khalkhal galiso deegaanka dadkii jeelogaadan ku ciqaabay dadkii madaxda ah dadkii maaliyadaha iyo lacagta maamulay dadkii عبدي إلى شخص ينبوها عبد محمد عمر مدحيني وريد ديان صومال شخص بوها لكن وحول لها حنان يا هيكل دولتين أو هو ذيك سنة عبورينتي عدادس كي كنت مشهد حقوق الشعب ده هيكل كاي حنان كدولتين يسوي اسمهين شخصيات باهين كقبلوا مدحيني كحيين كقبلوا كابينة كقبلوا هجامين إيه تلياشي عيلة مضيئة نبغى قيبو كجيست مركز دبكة عبدي تيسي حقيقة إسقى هي ماته وتاجية محكمة وتاجية لكن تدكي دمبيجن كلا قيب قاطي تدكي جماعة كشعب كلا قيب قاطي تدكي بوب كهانتي ده كلا شعب كلا قيب قاطي تدكي هجر دعمة تدكي كلا قيب قاطي عن هور كنا شرعية يجينا هور كينين مرن كوي متبي تاني ما نصلكوا كايسا سيدا ورك كواين وحويا مركا قلنا الدوري سمركا إن شرعية الهور كينين تدكي مسؤولين تا نظام كي هورك كميت كها oo qaybo badan ay yihiin niman ka tirsan maanta golaha dhexe iyo guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida tiraan waxaa jirtay ilaa 66 qof 62 qof oo xeer ilaaliyaha guud ee dawladda federaalka absolutely kuwa waxaa ka tirsan oo ugu badan niman badan oo maanta guddiga fulinta iyo golaha dhexe isla nimankii baa intaysa soo abaabuleen la maanta dawladdii baan qiimeynaa waan gamgameynaa waa waxay ku tilmaameen iyo gamgameyn deedana la xisaabtamina ultimately inay meesha ka saaraan oo yahay nidaamka arinta waxaan u arkaa wax ma aragtay aqliga iyo common sense uu keenay ma nin dambiili marka hore soo ku qiimeeyay way ninka dambiilihi in sharci dambiyadu gal inta lagu la xisaabtamo maxkamad la horgeeyo sharciga la horgeeyo sharcigu waxa uu gooyo in lagu qaaday yahay laakiin adigoo shaar xisbi ama shaar dawladeed gashan laakiin haddana uu sharcigu ma aragtay ku raadinay oo waaran maxkamadeed socoto
ma arka dee caqliga saliimkii waxa keenaya inuu intuu dad soo hor fadhiisto uu golo shir soo dhex fadhiisto inuu yidhaahdo waxaan qiimeynaya xukuumad ama maamul ama madaxweyne. xubintii saadaasha hawada ee warka daawasho wanaagsan. daawadayaal intaa waxaynu ogeeg warkii oo aad kala socoteen telefishinka SR TV intii nala socotay waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaan waqti kale hawada ku kulmi doonaan aniga asxaabtii kale igala qayb qaadatay xilitabinta warkan annagoo isku duuban waxaan isku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. gudniinka fircoonigu horta dhibaatooyin aad u badan ayuu leeyahay. waniyo sidii faruure man quruux ku dhaaftay haweene waniyo sidii faruure man quruux ku dhaaftay haweene iyo jigjiga yaaros kugu dhul barwaaqo wanaag rabbi uu dhigi iyo jigjiga yaaros kugu dhiga dhaqaniyo wanaag rab ku dhahaabtayo ku dhawaystay walaal hayga marin kale dhaqaniyo wanaag rab ku dhahaabtayo
marraba aan ku dhaafino